Bismillahi Rahmaani Rahiim waa Somali News wararkii ugu dambeeyay iyo xaaladda dalka ayaynu xooga saari doonaa. War hadda kusoo dhacay warbaahinta Somali News ayaa waxa ay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Roble uu magacaabay laba guddi oo kala ah guddiga qabanqaabada banaanbaxa, waxayna ka kooban yihiin xubno ka matalaya dowladda iyo midowga musharaxiinta. Lambar 2 guddi baaraya falkii dhacay 19 Febraayo, kaas oo lagu weeraray qaar ka mid ah musharaxiinta ayagoo dhigaya banaanbax nabadeed. Sidoo kale war degdeg ah ayaa waxay sheegaysaa in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa ku dhawaaqday in dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa in ay bilaabanayso 15 Maaj. Sidoo kale wararka ugu dambeeyay ayaynu haynaa. Sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga, waxaa si habsami leh uga socda xarunta taliska tababarka layliga Commandos-ka ee magaalada Isbarta. 330 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Turkiga ayaa tababaraya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor iyo Haramcad. Sidoo kale wararka iyo wacaalka ayaynu idin haynaa. Jubbaland ayaa war ka soo saartay xaaladda abaaraha ka jira gobolka Gedo, xilli xaalad bini'aadanimo laga dareemayo gobolkaas. Waa Somali News oo mar waliba idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay. Guddiyada banaanbaxa haddaynu qaar ka mid ah in sheegno waxaa ka mid ah ama dadka ugu caansan waxaa ka mid ah ee guddiga qabanqaabinayo ama banaanbaxa qabanqaabinayo Cumar Cabdi. Waxaan rabaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Alcadaala ayaa ugu caansan. Sidoo kale guddiga waxaa ku jira sida la sheegayo guddoomiyaha mise duqa magaalada Muqdisho. Intaas ayay noqon doonaan wararkii iyo wacaalkii hadda kusoo dhacay Somali News. Soo dhawaada.